بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قيارتي أصحابتا نجعل هاي جنرال كيغانواني وعي قلن كحرم ولا ليال سودواد إن شاء الرحمن دامان ولا لها يقع سبنا سودويني وحان ليا هاي سودواد قاعم فرنك سودواد أدي هادنا داوانين هديه كوتا ولا المركي ugu horeysay oo aad channelkan daawatid fadlan waxaan ka codsanaynaa insha Allah inaad channelka subscribe noo dhahdid gambaleelkana aad furatid insha Allah si mar walba wax cusub aan soo dhignay ay ku soo gaaraan dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah ugu horeyn horta waxaan idin leeyahay jimco kariim jimco mubaarak biidnillaahi albaari waxaan idinkugu hambaliyeynayaa ciida isbuuca iyo maalintan qiimaha iyo qaayaha leh ee ah jimcada insha Allah jimcaha waxaan ognahay inuu leeyahay fadaa'il fara badan insha Allah waxaan rajeynayaa jimcaha fadaa'isha ku jirtana inaan ka faa'iideysan doono waxyaabaha ugu waaweyn oo jimcaha ku jira waxaa kamid ah in la badiyo xuska nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay noo fududeeyo inaan nabiga salligiisa sallallahu alayhi wasallam aan badino sidoo kale jimcaha waxaa ognahay inay ku jirto ayadana saacatul ijaaba culimadu waxay ku sheegaan inta badan inay ku jirto bacda al-casr biidnillaahi albaari ayadana ilaahay naga dhigo kuwa goobo insha Allah raadiyo oo haleelo biidnillaahi albaari sidoo kale waxaa la jideeyaa maanta jimcaha in la aqriyo suuratul kahfi insha Allah ayadana ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay uu fududeeyo oo aqriyo suuradaas insha Allah markii aan ka gudbo hambalyantan isugu hambalyeynay ciida isbuuca biidnillaahi albaari waxaan rabaa insha Allah maanta inaad igula noolaataan oo aad ila dhadhamisaan oo aad ila dhuuxdaan oo aan isdul taagno aayad ku jirta suuratul ahqaaf aayadaas insha Allah aayad maxay heetole qofka hadii uu fahmo macnaheedana uu aad iyo aad u dhuuxo aayadaas oo loo baahan yahay maxay heetole qofka inuu naftiisa ku dabaqo oo asagana uu iska raadiyo aayadaas iyo tii sifaadka ay sheegayso inuu leeyahay iyo in kaleentood insha Allah aayadaas aniga way taabatay way soo jiidatay saameyn ayaan igu yeelatay sababtaas daraadeedna waxaan jeclaaday inaan idinla wadaago insha Allah waxaan biidnillaahi albaari isku dayi doonaa intuu ilaahay naga karansiiyo insha Allah inaan jimco walbo aan maxay heetole quraanka aayad ama suurad insha Allah aan la noolaano maxay adduunyada wax laga qaadayo malahan hawl adduunna maba dhamaata sideedaba insha Allah waxaan noo balanaa ama isku dardaarmeena waxay tahay in insha Allah hamigeena uu u bato aakhir biidnillaahi albaari maxay qofka hamigiisa ugu weyn aakhir ka dhigo adduunyo waxa waaye ilaahay baa insha Allah u soo aroorin doono marka aayadaas ee biidnillaahi albaari oo aayad ka hadlayso horta suuratul ahqaaf ku jirta aayad waxa ay ka hadlaysaa ama ku sifeynaysaa walad nooca aad tahay ma waxa tahay walad shaqi wal iyaad billah inaan walad shaqi noqono mise waxa tahay walad saalix insha Allah ilaahay aan weydiisanayna in awlaad saalixiin naga dhigo annaga iyo awlaadeena biidnillaahi albaari mar walba waxaan nahay walad ama aan weynaano ama aan yaraano hooyo aaba ayaan dhalay ha noolaadan ama ha dhintaan mar walba samafal iyo ihsaan iyo nugu leeyihiin insha Allah inaan baarinimo sameeyno ilaahayna ha noo fududeeyo anaga iyo ubadkeenaba inaan insha Allah noqono kuwa baariyaal biidnillaahi albaari aayada ugu horeen waxa aqrin doono waxaan aqrin doona sheekh aan qiraa'adiisa aad u jeclahay kulli aniga qaasatan lagana yaabay dad idinka mid ahne in sheekhaas qiraa'adiisa ay jecel yihiin sheekhaasna waxa weeyaan sheekh Cabdalla Madruud biidnillaahi albaari aayada markuu sheekha dhameeyana waxa ayadana noo tafsiirin doono oo aan tafsiirka ka dhageysan doonaa sheekh kale oo aan tafsiirkiisa aad u jeclaasne sheekh Maxamed Cumar Deerer xafidahumullah dhamaantood ilaahay xifdiyo culimada biidnillaahi albaari annagana insha Allah ilaahay hana xifdiyo waa rajeynayaa inaad aayadaasi ila dhuuxi doontaan oo aad macnaheedana insha Allah baari igala faa'iideysan doontaan oo aan insha Allah nafteena sifaadkaas ka raadin doono quraanku inagu nala hadlayaa qolyo dhintana la hadlimayo qolyo ma aragtaa bir hore noolayna la hadlimayo quraanka mar walba wuxuu la hadlayaa qoladii markaas nool ilaa qiyaamu saacana quraanku wuxuu ahaanayaa mid qolo walba markaas timaado la hadlo biidnillaahi albaari marka insha Allah adinkii shuyuuqda idin kala bixi doona fiidiyowga insha Allah fiidiyowga xigani intaan ku kulmeyno waxa idinkaga tagayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله
وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إلهي وحول ووصينا الإنسان قفكي بني آدم كاوحا ندر دارني بوالديه لبضي للي إحسانا سمافل إنه سمافله إسكمت شران لبضي والده لسيك لقاديه حملت أمه هو يدي ويحنبارت يا علاشي كو حنبارت كرها حملت أمه كرها هو يدي ويحنبارت أوركي كسيدة يدو كريدا عليس بيك لكلا ووضعته ويأمشي كرها يدو كريد يدي بعتك لكلا وحمله المهن مدد للسيدي علاشي لقو السيدي وفساله وقت جي لقى قريي إلا الشخصية 30 شهرا وصدم بالعض أوركي انتي لقو السيدي انتي لشخصيني ونولاضي استمر في الحياة وي حتى إذا بلغ أشده مركي وقاري مدكر كيس أو طابق لي ويسكتهمتي وبلغ 40 سنة أفرتا سنة وقاري وكي وناك سنايا قال وحولي سقط دعيني ربي إلهي قيو أوزعني إوافتش ألهمني إلهي ويقول إلهامي وإيسهل أن أشكر إنكم هدنقه نعمتك برواقضاضة التي أنعمت علي نعمة ذنك إن نعمة يسوي على والدي إلا بدي دلي إلهي ونعمة إنكم هدنقه إوافتش وولد كي وناك سنات دعادي إلهي وكوهم بليني وأن أعمل صالحا عمل وناكسنين أن سمينا إلهي يوافتش ترضاه أتكرالت وأصلح لي في ذريتي وبتكيك إلهي وناكس سيدا أنبان والدك وناكسن إني تبت إليك أنوان كو توبتك يعني وإني من المسلمين وحانا كمي هاي كوي سكادي بكوه قاسمي أولئك أبو إلهي كوه لقن كاله حق إلهي كي والدك بفليي الذين كوي نتقبل عنهم aanu ka aqbalayno axsana maa shay kiisii wanaagga badnaa camiluu ay sameeyeen wixii wanaagga badnaa ay sameeyeen ayaanu ka aqbalay wanatajaawaz waxaanu ka salabayn oonu ka tirtiri can sayi'aatihim gafafkooda fii asxaabi aljanna iyagoo ku tirsan dadka ahlu jannaha fii jumlati asxaabi aljanna asxaabu jannaha la casuumaya wacda sidq wacada allah إلهي بلن قاضي وعد الصدق بلنتي دبتهاي الذي كانوا يوعدون الله يبوهي ساسا إلهي وكنت المامين لبدا آيات والدك وناكسنا أما والدك حقيسي يا ولدك وناكسناي حق والدك كصوب حي قد يد القرآن كوكور رمى يا مها خبر إن ورون لغوش يغو تنا أدقيستو هذا ما شاء الله كاسوا ولد وناكس خير الله سي لكن marka loo sheegaya waxa weeye inaad adigu ka noqoto laftiisa qof wanaagsan baa lagu sheegay adaa lagu leeyahay noqo adiga laftigaagu waa inta laga helaa oo aad xaqiijisaa waaya waxa marka rabbi uu xusay halkan تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا هي حسنا لبدا واجرته ما لها قاركود سورة العنكبوت حسنا سورة دي كسيه الرئي سورة بني إسرائيل سورة الإسراء هي سورة الأنعام إحسانا هل كان قرآن قاركود إحسانا بأخرية هي حسنا الله وضع بو أخرية marka waxa arkaysaa ayadaha qaar kood waxa la isla waafaqay ihsaanan
aayadaha qaarkoodna xusnan aayaddanna ixsaanan iyo xusnan labada waa la akhriyay marka sidan inoo dhigani waa ixsaanan labadubana waa laba masder oo macnaheedu waxa weeyaan samafalkii uun an yuxsina lilwaalidayni ixsaanan wa xusnan waa laba midna waa masder wasnigii qiyaaskaa kuwii midna waa ismu lmasder waa axsana ixsaanan wa xusna sabaxa tasbiixan wa subxaanan subxaana iyo tasbiix unbay la mid yihiin iyaguna oo ismasderka waxaa la yidhaha masderka asliga ama qiyaaska ah ka xuruufta qaarkeed ka taga oo ixsaanan dee xusnan baa ka gaaban tasbiixan subxaana baa ka gaaban marka ismasderka sa ay ku tacriifiyaan culamaa naxw baa saas waa arrinkaasi taasi oo cilmiga luqada la xidhiidha qofka daalibulcilmigaa bay khusaysaa qofka caamigaa waxa khuseeya un macnaha aayadda intaa kale waa uu naxweyn unbu odhan waaya hooyadii iyo aabbihii ayaa ilaahay isagaa kala ogsoona xoggaal u sii ahe culayska hooyada ka haysta ilmaha ayaa si gaara ilaahay isu dultaagay iyadoo uu ku tilmaamayo taa inay sii xaq weyn tahay iyadu mar walba qur-aanku waa baraarujiyaa inay sii xaq weyntahay wahnan calaa wahnin baahayd halkanna kurhan wa wadacatu kurhan kurhiga iyo wahankuna waa dacfiyo tamardarro hooyada soo gaadhayo waynu soo sharaxnay kurhiguna waa kadeedka iyo dhibka iyo culayska taasi waxay tilmaamaysaa marka ilaahay isagunbaa rag iyo dumarba ogsoon mid walba dadaalkiisa iyo hawshiisa mid walbana xaqiisuu siiyey halkan waxaa ka muuqanaya raggii iyo dumarkii oo ilaahay uu tilmaamayo inuu dumarku xaq weyn oo raggii ay kaba sii xaq weyn nebiguna waa kasaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaamoo markii ninkii uu su-aalu yidhi samafalkayga yaa ugu mudan hooyadaa marafraadku aabbuhu soo galay 3 meelood marka ay qaadato hooyadu samafalka ayaa aabbuhuna uu mid qaadanaya marka waxaad ka arki karaysaa miisaanka weyn iyo fadliga weyn iyo dheeraadka weyn ee islaamku uu siiyey dhadiga halkaa marka aynu marayno waay waxaa halkaa taasiba ilaahay uu ku muujiyey subxaana dadkiisa lab iyo dhadigba isagaa ka warhaya rag iyo dumarba kurhigaa iyo kadeedkaas ilaahay wuu isku darayoo waa uurkii ay ku side marka hore xamligani waa kii uurka wadciganina waa kii umusha xamliga dambena waa isla isagii un wafisaaluhu 30 shahran fisaalkuna waa jaqsiintiiyo ka gurintiiyo jaqsiinti marka wuxuu ilaahay isku daray uurkii ay ku siday umushii ay umulaysay adhaxdii ay ku siday ibtii ay ka jaqsiinaysay inta waa isku wada dar mar uurkay ku siday waa taa la wallacday waa taa la cifatay waa taa dirgan weyday marna way umulaysayoo dee nafka eeg baabay haydba ilaa ilaahay kala nabad keeno lama miirsado oo waxaa la idhaha miyay dhimatay mise way noosh bal culimada axkaamta iyo fiqigu waxay ku daraan min alamraad almakhuufa foosha waxay ku daraan cudurrada cabsida leh haddii ay markaa wax sheegto oo ay waxa ha la bixiya waxa ha la yeelo waxaa loo tixgelinaya inuu dardaaran yahay dardaaran ahaan baa loo qoray qof sii dhimanaya sidii oo kalea loola dhaqmaa waaya arrinta aan sahlanayn iyada laftigeedu waxa weeye dee jaqsiinta nafaqadeedii iyo sidii aynu hore usoo sharaxnay ee cilmi ahaan aynu ugu soo eegnay aayaddaa hore markii aynu maraynay nuxurka raashinka ay qaadanayso ayaa uu miiranaya waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay barasite weyn ama noole hooyada ku dhex jira oo iyadii jaqaya oo afka u dhiganaya tamartii ay qaadanaysay intii u fiicnayd isagoo ku dhex neefsanaya oo ku dhex saxaroonaya oo ku dhaf rafaadaya oo isagoo aan u jeedin arrinkiisu u dhammaystiran yahay wixii dhinmaanaha hooyada ka dhinmayo
shakhsiintii weeye aayaddu 30 bilood bay sheegtay waxaa lala akhriyayaa aayaddii kale xawlayni kaamilayni walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni 2 bilood oo 2 sano dhammaystiran ha jaqsiiyaan 24 bilood weeye 2 sano waxaa laga jarayaa 30 bilood waxaa soo hadhaya 6 bilood waxaa halkaa laga fahmay bay leeyihiin culimada axkaamtu inuu ilmo ku dhalan karo dhammaystiran aabihiina ku abtirsanaya 6 bilood mid 6 bilood inuu ku dhalan karo 6daas ayaa marka la kala jaro muddadii jaqsiinta 24 bilood ah 6 bilood baa u soo hadhaya uurka intii uu ku jiri karayay ilmo shin ah inagu 7 ku dhalay baynu raahay 6 ku dhalay baa laga fahmay halkaa qisa marka Abu Isxaaq uu soo warinaya Ibn Isxaaq Maxamed ibn Isxaaq haddii ay suganto waxa markaa uu tilmaamayaa in qisadaasi ay dhex martay labadii asxaabiye khulafada ka mid ahaa ibnu kathiir laftiisu dee waa sheegaya ibnu abi xaatim iyabaa markaas uu isaga laftiisu leeyahay way wariyeen cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu baa gabadhi u timid may gabadh baa ninkeedii ka soo ashkatooday wuxuu uhi gabadhii waxay dhashay ilmo aan kaygiiba ahayn oo nin kale ka dhalay oo say ku dhacdo dee muddo 6 bilooda bay ku dhashay buu 9 baynu ku naqaanay markaa gabadhiina waa la weydiiyo dee cid kaleba iima bixin bayt ee kan isaga ah unbaa baanu isaragnay waqtigaanu isaragnay dee 6 bilood waa ka dambeeyay laakiin dad kale ismaan aragoon isaga ahayn cuthmaan iyo dee garsoorkii arrinkii waxa loo tixgeliyay inay sinaysato waxa la amray in dhagax lagu dilo dee diraasad kadib cali ibn abi talib baa yimid oo cuthmaan baa arrintii weydiiyey markaa wuxuu uhi qur-aanka waxaynu ka fahmaynaa in 6 ilmo ku dhalan karo cuthmaan baa yidhi oo say ku dhacaysa dee bal labada un isla akhri buu 30 bilood una 24 bilood ka jar 6 baa soo hadhaya sidaa daraaddeed 6 ilmo uu ku dhalan karaa kanna waa loogu nisbayn karaa waanay kaga badbaadi kartaa rajmin iyo dhagaxii lagu dilay ciqaabti waa qancay cuthmaan wuxuu uhi war bal ha laga daba tago oo ha la badbaadiyey islaantii laakiin waa loogu hurgufayba halkaasay ku allaysatay iyana markaa ilaahunbaa shahiid ka dhig insha allah maadaamuu isaguna ijtihaadaya uu dadaalayay waana ku canaantay cali laftiisiyo de inaad miyaanad qur-aanka fahmin buuha aanad akhriyaynin amaa taqra'u lqur'aan qaala bala miyaanad qur-aanka akhrin maxaad isula akhri weyda aayaadka waxaad halkaa ka arkaysaa haddii qisadu suganto fahamka bani aadamka inuu ilaahay u kala kaxeeyey oo ay kala faham badan yihiin xagga dee xifdiga waxaaba kusii badnaa cuthmaan oo la odhan jiray 24 saacadoodba hal mar ku dhammayn jirayba qur-aanka waay waladkii wanaagsanaa markii uu gaadhay buu ilaahay yidhi xataa idaa balaqa ashuddahu markuu mudakarkiisii gaadhay wa balaqa 40 sana 40 sano uu gaadhay markii uu adkaaday mudakaray taabagal noqday isku tuntay ee uu 40 sano gaadhay ayuu sidaa ku ducaystay 40 sano 40 sana waa waqtigii rususha lagu soo diray waqtiga qofka caqligiisa iyo koritaankiisa iyo wixiisiba dhammaystirmeen weey xigmadeeday leedahay Soomaalidu marar badan baa waxay ka waramaan mahmahooda inay soo qaadanaa waxay tilmaamaysaa waxiga inaan waaqica ku dhaweynee waxba inaga xumayn mayso inkastoo laga yaabo daayaraan daayarto inaanay waxyaabo badan oo mahmaha fahminba laakiin odayaashuba way la qabsaneen waxay odhan jireen xigmad mahmaha xigmada 20 jir hala baratamin 30 jir waxa la cunin 40 jir hala lagdamin maxaan ku raahdaa 60 jir hala garamin kii konton kana adaa ku sii daraya 20 jirku fududiyo lama baratami karaba 30 jirkuna xagga calooshiiba uu weeyay waxba lama cuni karo xagga isagu ku dheeraynaya 40 jirkana uu isku buuxayo lama lagdami karaba inka isaga hay waa ka xog badanaya marka sidaa jirkiisu de qofkan 60 jirkana waxaan loola garamay waa khabiir waa arag wax badan buu soo joogo oo lama garami karo waa rugcada wadadu cabsiinaya kii markaa ku soo jahaysta idan markaa sidaa loo leeyahay jirkiisu qofkan uu dhammaystirmeeyaan loo lagdamin ba aqligiisuna uu la mid yahay ilaahay baa markaa wuxuu tilmaamay ducada wanaagsan ee 40 jir iyo insaankii waladka ah ku ducaysanay
qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waaliday ilaahayow waafajina nicmadaada ku mahadnaqo anig iyo waalidkayba aad noo nicmaysa mar haddaad muslimiin naga dhigtay mar haddaad waalidkiina ka dhigtay mid xaqiisa garanaya anigiina mid xaqiisa garanaya inaan camal saalixood ka raalli tahay aan camal falana ilaahay waafaji waaslix lii fii duriyati ubadkana ii hagaaji saasuu ku ducaysanaya hankiisu waa weyn waan kuu toobadkeenoo muslimiinta ka mid ah ilaahay baa markaa aqbalay inagu abaabulo ina jeclaysiiyo waxa uhi ulaa'ika aladiina nataqabbalu canhum kuwaasaanu ka aqbalayna camalkooda wanaagsan axsana maa camiluu kii ay sameeyeen kii u wanaagga badnaa haddii la aqbalay kii ka hooseeyena horey baa laga sii aqbalay arrinka weyn haddii la aqbalay kii yaraana hoosgal camalkii axsankaa ee wanaagga badnaa haddii la aqbalay kii hoosena waa ka sii xag jira waxaanu ka dhaafaynaa sayi'aadkooda wixii gafafa asxaabuljanna bay ku jiraan wacda sidqi ilaahay baa ballan dhab ah wacda sidqi ballanta runta ahi waa ballanta dhabta ah alladii kaanuu yuucaduun saasaa rabbuna subxaana oo inoo tilmaamay oo halkaa aad ka arki karaysaa qiimaha badan ee uu leeyahay waladka wanaagsane xaqiisii gutay xaqii waalidka waxaynu wax yar raacin lahayn markaa samafalka waalidka iyadoo qaybtan hore imika ay tahay kii samafalaha maadaam la ammaanay samafalkuna ammaantuu leeyahay iyo inuu yahay cibaado weyn oo cibaadooyinka qaarkoodba ka sarraysa xadiid xasana baa waxa uu tilmaamayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi gaaladan ka soo haajiray buui jihaadka iyo waxaan u imi buui islaamnimada dee ehelkiina yeman buu joogaa buui labadii ku dhalay miyay nool yihiin buu markaa nebigu ku yidhi ninkii haa buuhi haa dee oradoo labadaa u samafal buuri islaamnimo uma diidaye inuu halkan sii joogiyo inuu jihaad kale iyo sii galo waxoo dhan iyo hijradan uu soo hijrooday intaba wuxuu ka doorbiday kol haddaad islaamtay waalidkii ku noqo oo u samafal buu leeyahy xadiid kaloo isagana xaakim saxiix uu ku tilmaamay dahabigii lala akhriyi jirayna la yidhi wuu la waafaqay inuu saxiix yahay waxa uu tilmaamayaa nebiga waxa u yimi calayhi salaatu wasalaam nin reer banu salima ah su-aal buu weydiiyey la odhan kara innagana in badan oo ka mida muhiim bay nooti qofka waalidkiisu dhintay muhiim bay u tahy labadii waalid intii ay dhinteen kadib samafal miyay igu leeyihin buu weydiiyey samafalka waalidku ma waxa uu ku egyahay inta ay nool yihiin mise intii ay dhinteen kadib samafal ayay igu leeyihin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi haa samafal bay kugu leeyihin samafalkooduna waxa weeye intii ay dhinteen inaad u ducayso ilaahayna dembi dhaaf u weydiiso cahdiga wixii ay kugula ballameen hadduu yahay dardaaran iyo haddii ay amarra ku siiyeen inaad dardaaranadoodii fuliso oonad fudaysanin ood odhan karo hadduu odayga allaystay ama islaantii ay iska jeesatay dee warkoodii waa tegey ha odhanina ballantoodii fuli waa samafal iyo inaad xidhiidhiso qaraabada aan iyaga mooyaane cid kale xidhiidhin jirin ama iyaga daraaddood lagu xidhiidhinaya qaraabadaana xidhiidhin waxaa kalood u samafal ila dad badan baa waalidku inuu ka warhayaa marka ay dhintaan aan cid kaleba ka warhelin kuwaa xidhiidhi qaraabada iyagu xidhiidhin jireen samafalkooda waxaa ka mida saaxiibadooda inaad xidhiidhiso saaxiibbuu odaygu lahaa saaxiibbay hooyo lahayd markaas saaxiibbada inaad xidhiidhiso saasuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saddexaad waxa uu tilmaamayaa isaguna waa saxiix ibnu cumar ayaa wuxuu leeyahy nabigaan maqlay isagoo leh waa cumar binu khadaab baan leeyahay taabiciinta waxa u khayr badan buu nebigu yidhi nin uways alqarani la yidhaahdo waaliduu leeyahay hooyadaasaan u samafalaa waxyaabuhu khayrka ku yeeshay bay ka mid tahay haddaad cumarow la kulanto ilaahay waxaad weydiisataa inuu ilaahay duca ku weydiiyo inuu ilaahay ku rabbi baryo waa mustajaabu dacwa ninkaas hooyadiisaasuu dul fadhiyaayoo waxyaabo badan uu qabsan lahaa uu ka qabsan kari waaye bal ilaahay bari ninkaas inuu ilaahay kuu bariyo weydiiso waa kii cumar baadi doonayay muddada dheer sada xadiidka ku aragtay waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yihi waa xadiid saxiixa isna biruu aabaa'akum
tabirukum abnaa'akum wacifuu tacifa nisaa'ukum u samafala aabbayaashiin ubadkiinnu ha idiin samafalo dhowrsoonaada oo xaaraantiiyo xumaantiiyo sinaada iska ilaaliya dumarkiinnu ha dhowrsoonaadeen macnaheedu waxa weeye waxyaabaha cuqubadooda la soo dedejiyo ayay labadan arrimood ka mid yihiin haddaad waalidka ka eexato adna ubadkaa kaa eexan haddaad adigu ooryaha dadka jiirhjiidho kuwaagaa la jiirhjiidhi ila waa isu tuure waxaa kaloo uu tilmaamayaa xadiid ibnu cumar uu warinayo tirmidi uu ku tilmaamay saxiix nin baa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi dembi weyn baan ku dhacaye towbad miyaan leeyahay rasuulku su-aal muu sii weydiinin dembigu nooco ahaa iyo waxaase dee ninkani waa sakatisan yihi waana didsan yahay dembi weyn buu ka cawday su-aashuu ku soo celiyay wuxuu idhi miyaad hooyo leedahay haa buuri haddaba iyaduunu samafal buuri dembiga weyn laftiisa lagaa dhaafiya waa miftaaxii makfirada iyo dembi dhaafka xadiidka shanaad waxa uu tilmaamayaa isaga laftiisu waa saxiixo tirmidi baa warinaya nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay jihaadkan u imi laakiin labadii idhalay way barooranayaan hooyo iyo aabbaba imaatinka aan ka imeen dagaal kula gelayo aad bay uga xumaayeenoo inaan dagaal galay iyo inaan ka soo dhaqaajiyo toona raalli kamay ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi orodoo ka qosli sidaad uga ohaysay haddaad janno doonaysiiyo jihaad iyagii ku noqo oo ka qosli buu idhi sidaad uga ohaysay marka ay kaa raalli noqdaan bay wax kuu ansixiya jihaadkana iskaga tag waxaa kale oo saxiix ahoo nebiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam nin baa nebiga u yimi kale dadkan ilaahay uu soo diray rasuulka u imanayaa jawhar bay ka soo daadinayaan iyo xigmado isdaba socdo aynu u ayno oo dhaxalgalah ilaa hadday meeshooda iska aamusnaan lahaayeen waxaanoo cilmiya maynaan heleen iyo sixitaana markaa ninkaasi wuxuu yidhi islaantii iyo hooyo ahayd ayuunbaa ku foogan ooridii oo way karaahaysanay waa ku soo taagantii waxay leedahay haddaad doonaysa inaan wada hadallo in wada joogno horta heblaayadan iska dhaqaajiyo iska furo mala arrinkaasi islaamaha qaar waa ku badan yahay dabeecaddoodu yaro adag tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma garansiinin oo dacwad umuu qaadine wuxuuna ku yidhi alwaalidu awsadu abwaabi aljanna fain shi'ta faadic dalika albaab aw ixfad calaa macna alxadiid waalidku waa albaabka dhexe ee ugu muhiimsan albaabka maynka ee muhiimka ah ee ugu muhiimsan kuwa jannada weeye waalidku dee ama albaabka muhiimka ee bilaa cidhiidhiga ee horey laga gelaya iska dayac ama ilaasho luqad nin weyn ayuu kula hadlayoo aanu odhanin ka carariyo iska furtoona waaye iska furna mararka qaarkood adugu ibnu cumarna saasuu ugu jawaabay wuxuu yidhi dee aabbaha aqbal markuu yidhi aabbahay wuu diidan yahay ooridaydii aabbaha aqbal unbuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ayaan dee xaasaskana lagu kicine oon carruurtiina lumine wuxuuna la tusinayaa un xaqa waalidka la tusinayaa waa laga yaabaa mararka qaarkood inuu khaldan yahay qofkani waxase sharcigu ogyahay naxariista hooyo iyo aabbaa la ogyahay inta faraha badan sida qaalibka ah hooyo iyo aabbo oorida ubadkooda waxa ay ugu kici karaanuun ama ay ku sanifi karaan ay ku diidi karaan marka ay diin iyo dadnimo wax ku saluugaan markaa wey laakiin qofkan oo miyir qaba u wanaagsan oo inanka u wanaagsan oo iyaga u wanaagsan oo ummadda u wanaagsan oo ubadka u wanaagsan ma deedifeeyaan naxariistooda ka badan naxariistay waladkan u qabaan ayaa ta uu isagu qabana ay u qabaan laakiin markay iska soo taagaan meeshaa khayrkiibaa ku liito qiimayntiibaa la isku khilaafayoo waxaa laga yaabaa qiimaynta waladku inay liidato qiimaynta waalidkuna ay hagaagsantay ismaandhaafkuna halkaa uu markaa ka imanaya waladkiibaa laga yaabaa inuu isagu meel soko wax ka eegayo oo ma isla duulaayo ma isjeclaanaadaa ayay ugu dhantahay istaraatiijiyad dheerna waalidkii waxbuu ka eegayaa iyo arrimo masiiri oo mustaqbalka ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si cajiiba buu isagu u camalgeliyey samafalka waalidka waayo nin dhallinyaraad ah ka warramay wuxuu ihi isagoo wakhtiyada ka mida rasuul aadba u mashquulsan ummaddana deeq iyo sadaqa u qaybinaya dad marka wax loo qaybinaya hawsha jirta iyo kakanaantoodana dee waad ogta iyo mashquulka ayaa halkaa ruux dumari ka soo baxday wixii uu hayeyba intuu iska dhigay
ayuu maradiisii la cararo markaasuu halkan u goglay maradii kolkaas iyaduna go'isii buu kala bixiyay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadii buu ku fadhiisiyay iyana iskama ilaabina way ku fadhiisatay markii aan idhi war maxay ahayd islaantan nabigii qabsatay waxa la yidhi waxa weeyaan xaliimatu sacdiya waa islaantii jaqsiisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo nebiba ha ahaadee waa inankeedii yaraa ee ibteedii iyo naaskeeda ay ku duwday isaguna saas uu qadariyey waa arrin aynu odhan karno waa ka fogiino ee dhallinyarada marka ay hooyadu intay ka tagaan meelaha wax ka soo bartaan iyagoo isyaro qundhodhinayo shaarka surwaalka hoosta ka mariyay intay yimaadaan islaantii odayga odhanaya buulkanaad ku jirta armuhooyo aaba jarmis leeye waxaa iga xal waxaa sidan iga dhe waxaas dabeetana halkoodaba inuu fadhiistuu seexdo meeshoodaa yar iyo karbaashka ay ku hurdaan inuu ku seexdo ka qashaafayaba intuu amamiya ugu waa arrin waa cajiiba wey rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid kaloo muslim uu warinayaa waxa uu tilmaamayaa waa tadbiiqaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam tadbiiqu lmustafaa libiri lwaalidayn sidii uu waalidka ugu samafalayay ayaa markaa tusaalihii uu ku ahaa nebiguna tusaale aada u qiimo badan maalin maalmaha ka midabaa waxaa la arkay isagoo qabrigii hooyadii ka agooyaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilmaynaya asxaabtii xokaynta u ahaa ee ka agdhowaana waa la ilmeeyeenba waxay idhahaan dee wixii kaa oohiyey naga oohi rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadkii waxbuu sheego waxau yidhi ilaahay waxaan weydiistay inaan istikfaar u weydiiyo oo aan dembi dhaaf u weydiiyo la iima ogolaanin maadaamay ka horraysay dee wakhtigii nebinimadaba waxaan see mar labaad weydiistay in la ii ogolaado xabaasheeda inaan soo siyaarto sidaa daraaddeed waa la ii ogolaaday markaa xabaalaha siyaarta aakhire idin xusuusinaysaa siyaaradaas aahaarta iyo had iyo jeer dhaxalka culimmadii laga dhexlee la xidhiidha dhinaca samafalka waalidka bal si aynu ugu cibro qaadanno daawus caalimka la odhan jiray baa waxa uu leeyahay sunnadii nebiga waxaa ka mid ah aanu ka soo dhaxalay dadkii salafkaa naga horreeyey in 4 loo samafalo qofka caalimka ah cilmigiisa naafica daraaddii loo samafalo oo lagu weyneeyo iyo qofka cirada leh iyo qofka madaxda ah iyo waalidka 4taa in la weyneeyo akhlaaqda wanaagsan ee islaamka ka mid tahay buu leeyahay xasanulbasri baa la weydiiyo waxaa la yidhi waar islaamkii samafal buu inagu abaabuleeye in waalidkii loo samafalee maa biru lwaalidayn labada waalid samafalkoodu muxuu yahay waxau idhi an tabdula lahumaa maa malakt wa an tutiicahumaa fii maa amaraaka bih ilaa an yakuuna macsiya waxaad xoolo leedahay inaad waxalla wixii aada xoolo leedahay inaad iyaga gacanta u geliso oo aada u dhiibto wixii ay ku amraanna inaad ka tala qaadato haddaanu dembi ahayn macnaha adduunkaagana ha maamuleen arrinkaagana ha hayeen haddii ay khayr kuu sheegayaan oo shar iyo balaayo aanay kuu sheegayn arrinkiiba intaasuu ku soo ururiyey waa kii dee nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam ninkii cabanayay jawaabtii uu siiyey xagga dambe aynu ku sheegay insha allah afarka afraad abi hurayra ayaynu ka soo qaadan lahaynoo hooyadii baa noolayd guri kale u deganaa islaantuna guri bay deganayd waa ku soo noqnoqon jiray habeen iyo maalinba wuxuu caadaysan jiray marka uu ka sii baxaya albaabku istaagaa markaasaa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum yaa ummaah waraxmatullaahi wabarakaatu hooyaday naxariista ilaahay iyo barakooyinkiisu dushaada ha ahaadeen iyaduna sidoo kale odhanaysay wacalayk waraxmatullaahi wabarakaatu naxariista ilaahay ha ku siiyaba iyaduna leedahay kolkaasaa waxa uu leeyahay raximaka illaah kamaa rabbaytanii sagiiran fataquulu raximaka allah kamaa rabbaytanii kabiiran aayaddii buu tadbiiqinaya camal gelinayaayoo allaha kuu naxariista sidii anoo yar aad ii barbaarisay hooyo iyaduna waxa ay leedahay allaha kuu naxariista sidaad ii barbaarisay anigoo weyn waa kala ridanaye walad wanaagsan baa tahay waa dadkii tusaalaha ku ahaa weeye cabdilaahi ibnu cumar nin buu soo maray dawaafayoo hooyadii dusha ku xambaarsan oo dhabarka u riday islaan gaabatay oo rifan iyo lisan uu ku dhaco gabowday oo hooyadii buu dhabarka ku sidaa ula dawaafaya gabayna waa tirinayaa wuxuu leeyahay innii lahaa baciiruha almudallalu in udcira rikaabuhaa la mudcari gabay noocaasa buu tirinayaa anigu awrkeedii baan ahay ay fuushanayd
ee u sahlanaa islaanta haddii uu argagaxa iyadu uun ma argagaxdo horta ibnu cumar baa saa u eego wuxuu yihi war islaanta xaqeedii ma fuliyey walaa zafratan waaxida gujo keliyana naxdin keliyana maa tidhaahid buuri maray foolatay jugta iyo radiidka ku dhacaya kaasaanad gaadhin buuhi adeer bal inta aynu ku dhaafna samafalka qur-aan iyo xadiidba ina faray iyo dadka aynu ku dayanayna xidigaha inoo ahay sida ay tusaalaha wanaagsan u ahaayeen